السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا صومال تجاب تونيكو سو دبادة ما انتو حاروا إنا للقيب صد فرحة دانير أيانا روا إنا للقيب سمو runtii aniga hadaan ahnay muslimiin ma ogolin inuu walaalaheena muslimiinta wax ku dhacaan hatta gaalada hatta inay wax ku dhacaan ma ogolin maxaa yeelay bini'aadanka ilaaha abuuray waana ka naxayna maasha Allah maanta shalay ilaa maanta waxa la warwalsan yahay sida sawirkani muuqdo gantaalkaas ayaa adduunka laga warwalsan yahay laakiin maasha Allah shalay 10 saac ayuu gantaalkaas soo afjarmay waxaa muuqaalkan ila wadaagi doona insha Allah gantaalka meesha uu ku dhacay ayaan wadaagi doona hadda gantaalka ha ka cabsanina gantaalka wili meel ma ku dhacay macnaha waxa ka wada gantaalka ha ka cabsanina meel ayuu ku dhacay meel wuxuu ku dhacay meel aan qof joogin hadaad xiisaynayso meesha ku dhacayna ku sheego fadlan muuqaalka like saar siina share garay si asxaabtaada ay ugu faa'iidaan een cabsida iyo walwalka ugu baxaa dadka muslimiinta muuqaalkan si share garay okay hadaa rabto inaan ila wadaago meesha uu ku dhacay gantaalka u jeedin waxa uu ku dhacay badweynta Hindiya Allahu akbar badweynta Hindiga ayuu ku dhacay ilaahay dadkiisa bini'aadanku abuuray isaga amaansana Soomaa ilaahay amaansada alxamdulillah muslim iyo galbo gantaalka wax ma garaafeen wuxuu ku dhacay badweynta Hindiga dad waxaa jiraan dadka been u sheegayaan dhahayaan Soomaaliya ku soo wajahan yahay Soomaaliya ku dhaca ilaahay ka cabsada beenta iska dhaafa shal waa ogeeday muuqaal aan ugu hadlay oo dhahay dadka beenta laga daayo sidoo kale dadka beenta laga gaayo beenta yaa u shaqeysan ilaahay ka cabsana leeyahay meeshaas ayuu eegay waxaa jiro janaal labaad aan leeyahay janaalkaas waxa ugu hadlaa waxyaabo